hiigsigii horeetiyo hantaaqadii culayskii halgan buu ahaayo hal sano saddexdaa silic bay ku nool gankeeda hooyadu intaa kuma istaagine duruustay ku geyso dugsigay ku keento darbi inaad u hooyatana dhagar bay la tahayo way kugu qabowda waxaa maanta si ballaaran looga xusay xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama 8 Maarso ee loo qorsheeyay maalinta xuska haweenka adduunka. Xuskan maanta ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka NAW qaybta gobolka Awdal. Xuskan maanta ayaa ahaa mid si ballaaran loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen marti sharaf aad u tiro badan iyadoo ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama, ururada kala duwan ee ka howlgala magaalada Boorama iyo marti sharafka oo aad u tiro badan. Munaasabadaasi ayaa iyadu waxa lagu xusayay maalinta xuska haweenka isla markaasina ka soo qayb galeen kooxda hidiyo dhaqanka ee gobolka Awdal isla markaasina ay ku soo bandhigeen ciyaaro kala duwan iyo hidiyo dhaqankii ciyaarihii lagu yaqaanay gobolka Awdal iyagoo oo halkaas ku soo bandhigay. Waxaana ugu horeynta kaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka NAW Radwa oo iyadu ka hadashay muhiimadda iyo xuska maanta ay u soo qaban qaabiyeen. waxaana ka mid ahaa hadaladeedii Maarso oo maalintii loo dabaaldegay ee loona asleeyay haweenweynaha adduunka dhammaan caalamka oo dhan ayaynu la qabnaa munaasabadaha lagu maamuusayo maalintan haweenka. haddaba waxaan salaam u dirayaa barwada koowaad ee dalka Marwa Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde iyo marwada labaad ee dalka Marwa Raxma Xaaji Maxamed Suldaan. waxa kale oo salaam u dirayaa dhammaan haweenweynaha reer Somaliland oo leenahay munaasabada haweenka ee maanta nagula ciida farxad. sidoo kale waxa ka hadlay haween soo qayb galay madashaasi oo iyagu xusayay maalinta loo qoondeeyo xuska haweenka. waxaana ka mid ahaa hadaladoodii marwada madaxweynaha iyo marwada labaad marwada koowaad iyo marwada labaad iyo dhammaan haweenweynaha adduunka gaar ahaan kuwa Somaliland ku nool. haweenka dhaqanka TV-da 9 qof ka jira 9 qof waxay imaan iyo waxay wadaan iyo waxay jibladaan midna ma haysan. marka meelo kale oo ku bixinaa waxay keeneen sadaqada way noo tahay waa walaalaheen waa dadkeeni ilaahay caafimaad u waayay waxaan leeyahay maanta degdeg looga soo jawaabo. isagana sidoo kale waxa ka hadlay gudoomiyaha magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi. waxaana ka mid ahaa hadaladiisii maalinta xuska ee haweenka ma ahan Somaliland oo kaliya caalamka oo dhan baa laga xusay. gobol walba uu xabow ku caan baxay inagu hidaha iyo dhaqanka waxaanu ka soo qayb galnaa qaybta sayliciga oo aynu caan ku ahayn. waxaad moodaa in imika naga bilaqaysi oo gobollo badan waxaan arkay sayliciga berwoodooda xagga bariga waxaan war baalka meesha meel kaga dhicinay bal waxaan idinka yeernaa Boorama oo qayb idinka keenayna duurka dambe walbahasha halka ku joojiya runtii ciyaartan ka dhacaysay mid qiimo leh runtii qof kastoo aqoon leh uu riyaaqi karayay sheeko zamana haleelin intii ka fadhiday sheeko zamana haleelin gabdhaha iyo wiilashaas ma ku maqnay waa runtii hawl inaga maqnay oo loo baahan yahay intay munaasabadaasi socotay ayaa waxa lagu soo bandhigayay amaba xuska lagu xusayay ciyaaro kala duwan oo gobolka Hidaa uu leeyahay isla markaasina gobolka looga bartay. waxaana ka mid ahaa ciyaarihii ay ka ciyaariyeen kooxda hidiyo dhaqanka ee gobolka Awdal.
kastaba ha ahaatee munaasibadan ayaa waxaa ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan waa nuuridiin cabdullaahi dugsiye magaalada boorama.